dhagaystayaal noloshiisii inteedii badnayd gabyaagii caanka ahaa ee cali dhuux la oran jiray waxay wada joogeen mihiye cali ibraahim haweenay iyadana lagu magacaabi jiray gudheedu way gabi jirtay inkastoo aanay wariyaashu ku guulaysan maansadeedii iyo tii saygeeda inay ina soo wada gaarsiiyaan cali dhuux laftiisuna sida kollow sheekada soo socota aynu ka garan doono kuma uu dhiirigelin jirin sida la wariyey isaga oo sudcaa dheer ka soo noqday oo reerkiisa caraaba ku yimid ayuu fishay shaah oo aad u jeclaa inay afadiisu si degdeg ah dabka ugu saarto iyaduna marahayga way ka wahsatay ama kama wahsane waxay doonaysay rag uu markaa u waramayay inay cabaar dhagaha u raariciso dabadeed intuu ku gartay ayuu indhaha kala hadlay uguna baaqay wuxuu ka sugaayay inay ku dhaqaaqdo iyada oo inta dabkii balbalisay jalamadii oo biyeysan dhaqdhaartii dul saaraysa ayay bilowday tix kaftan ah oo ay cali ku ximaarinayso waxay tiri kaftami maayo cali aadan oon koob yar loo shubine kalwin maayo haasaawahee wayskambarayaaye kurka intaanu seef iga jarin maanu kululeeyo shaahii markii la cabbay oo ay labadoodii noqdeen ayuu ku yidhi koldhow wixii aad tirinaysay bal ku soo celi markaas bay hor iyo horaanba dhagawadanaantiisa la yaabtay ismay lahayn meelisyadii tirada yaraa ee ay guuxa ku tirinaysay ayuu maqli karaa oo cali ma maqlaysay intay tiri ayay saddexdii meelis ugu celisay iyada oo baraadla oo aan burkaba bira ka filan haddayse la ahayd intuu muusoodo inuu tixda kaftan isaga qaadan doonana mihiye cali way malahabowda shalay maahee showdaraad bay gabyaagiina ka dhaqaaqday wuxuu u qaatay inay ka heelisay raggii ay isu gebi jireen inay u urda bixisay hebeladii badnaa ee colaadda maanse ka dhaxaysay inay u garbaysay bal malee siday hebeladaasi haad uga heli lahaayeen hadday tixdeeda markhaati uga dhigtaan daaxuu ka gaashaantay hunguri iyo cunno jacayl inta loogu soo gabbado sidii halac dheera in loogu gabiyo maantuusa dabin u galay haddiiba tixda mihiya intay shaacdo ay safruhu meel walba ula kacaan dabadeed gabay aan kaftankeedii u dhigmin oo carag ka soo saartay ayuu maalintaasna mihiye ugu jawaabay meel aan hadalku joogin ayuu gaarsiiyey wuxuu ugu hanjabay mar dambe haddii ay gabay ku maagto ama kii ay tirisay qudhiisa uu cid kale ka maqlo inuu furi doono wuxuu ugu dardaar wariyey iyada oo carmal ah reer aabbaheed oo abaari leeftay inay u daraabi doonto sidaasna ay ku waayi doonto caanaha iyo barwaaqada ay isaga agtiisa hadda ku haysato wuxuu yidhi waxaad maqashay miiriya goglaamire ku yaalayna inaad himirta muurmuursato yaad mihindisaysaaya ogaadeenna moohaar ku shubay mohoradiisiiya mooyaa ka ciyey reerahaad magac wadaagteene saddexdeedii naag loogu maray waa madowdahaye in muraayadeedii jabtay ban maragu haystaaye miiskeedu waa inuu carmale magac ku yeeraaye iga maarsoyaan ina caraay kuugu maraqsiine inkastoo ay ahayd tix ku culus qof dumara oo weliba la qabo haddana mihiye cali ma ay cabsi gelin dabadeed tix teelteel nagu soo gaadhay oo ay taa cali dhuux kaga jawaabtay ayay tirisay intay qaamaysay ayay weliba daaraca u raacay waxay ka calaacashay markeedii horena inuu fudeed ku helay oo yarad wixii ay mudnayd in laga bixiyo uusan ka bixin haatanna haddiiba saddexda uu sheegayaa ay afkiisa ka soo baxaan inay ka jaamayn doonto reerahooda kolkii ay gaadho siday boqoro tahay in loogu dabaaldegi doono wax yar kadibna inta la soo doono halaad iyo banaatiikhba in laga bixin doono waxay tiri caliyow bahday kala cuslaa anigu buurtaase sidaad garab yar ii baacsateen bayraha baan ahaye bilaash baad isaga kaya heshaye layma baayicine haddii aan u tago reer aabbahayga aad igu cabsiinayso ee aad leedahay waxaan masago ahayn ma haystaanna bal dhowr waxa aan mudan doono baan baa la ii tumi sidii baashi soo degaya walaalkayna boqolbaad la siin iyo banaatiikhee badbaado allah cali aadanow wasbedel iyaayawi